madaxweynaha Puntland Siciid Deni waxa uu kulan gaar ah la yeeshay qayb ka mid ah bulshada mandiqadaas markii uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho ayna soo xirmeen doodaha ku saleysan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku eedeysay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland in is hor istaageen kulamadii ugu dambeeyay in horumar laga sameeyo iyo meelmarinta heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar sanadkii hore kaas oo ugu dambeeyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay in Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ay diideen in horumar laga sameeyo arrinta tubta doorashooyinka Soomaaliya kadib 2 sano ku dhawaad oo Puntland ay ku mashquulsaneed arrimaha siyaasadda federaalka ugu dambeyn xalay ayuu u sheegay madaxweynaha Puntland Siciid Deni inay joogaan khasaaro siyaasadeed ma dafirin madaxweynuhu inay walaac ka qabeen hanaanka doorashada sidaas oo kale ma caddayn in ujeedada rasmiga ee xukuumaddiisa kuna wajahnayd diidmada ay kala soo laabatay heshiiskii 17 Sebtembar kadib markii la saxiixay bilowgii madaxweynuhu waxa uu si kooban uga hadlay kulamadii ugu dambeeyay ee Muqdisho wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha federaalku inaysan doonayn dhicidda doorasho rasmi ah wuxuu ku sifeeyay inuu doonayo inuu markasta ka shaqeeyo khiyaamo siyaasadeed iyo waxa ugu yeeray inaan la fahmi karin ay tahay Siciid Deni waxa uu soo hadal qaaday xaaladda Muqdisho intuu kulanku socday waxa uu sheegay in halis ay ka taagan tahay siyaasiyiinta caasimadda ayuu sheegay inay ku jiraan marxalad adag oo heerka ka hadalku halis gaaray wuxuu tilmaamay in dagaal ay cabsi ka qabaan inay ka dhacaan taas waxa uu sheegay in muddo ka badan 10 bilood ka shaqeynayaan sidii looga baaqsan lahaa farmaajo ayuu Siciid Deni ku eedeeyay inuu ka soo horjeedo nidaamka federaalka una doonayo in gabi ahaan meesha laga saaro taas oo uu sheegay in tahay dhacdo kale oo xasaasi ah sidaas oo kale xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka kana soo jeeda Puntland ayuu sheegay in aan yeeridoodu waxba qiimo ah ku fadhiyin oo aysan sharciyad haysan in ka badan 150 daqiiqo ayuu qaatay kulankan ka dhacay aqalka madaxtooyada Garowe waxa aragtidooda dhiibtay dad ka badan 20 qof hadal jeedin badan iyo aragti ay isdhaafsadeen ka qaybgalayaasha kulanka iyo madaxweyne Deni ayaa ku xeernaa arrinta doorashooyinka waxaa jiray 4 aragtiyood oo ay u bateen ka qaybgalayaasha madasha oo ka koobnaa siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ee Puntland qayb ka mid ah 4 aragti ayaa haraysay intuu kulanku socday taas oo ku wajahnayd arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaana ay u bateen kalena ahaayeen in Puntland aysan marnaba ku dhiiran sheegidda kelmadaha la xiriira inay ka goosteen Soomaaliya ama inay joojiyaan xiriirka federaalka laakiin Siciid Deni ayaa isla madasha ka sheegay inaysan jirin xiriir ay jari karaan oo kala dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama uu sheegay in haddaba xiriir uusan kala dhaxayn dowladda federaalka aragtida labaad in la kordhiyo talada ay ka qayb noqonayso Puntland go'aankeeda lana yeeshan kulan guud oo lagu tala qaadanayo ayaa la soo jeediyay taas oo ahayd qodobka ugu ballaaran ee madasha ka soo baxay waxa xubno badan oo hadlaysay in Puntland looga baahan yahay in xal raadinta qaybta ugu badan noqoto dhinaca kale ka qaybgalayaasha ayaa kulanka ka sheegay in dowladda federaalku ay taageero xoogan ku dhex leedahay gudaha beelihii ku midoobay Puntland 1998 laakiin madaxweyne Deni oo ka falceliyay hadalkaas ayaa sheegay inaysan jirin wax faa'iido ah oo beelaha darafyadu ay ku qabaan dowladda federaalka ee Soomaaliya aragtida saddexaad waxay ahayd in siyaasiyiinta madasha ka hadlay qaarkood ay aad ugu dhageen aragtida inay Puntland qaadatay qaraar adag oo looga madax banaanoonayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaana madasha ay ka soo jeediyeen in dib loo adeegsado qodobadii ka soo baxay shirkii Maarch ee sanadkii hore kaas oo ka dhacay Garowe qodob ka mid ah oo dhigaya in Puntland ay adeegsato qodobada dastuurkeeda u fasaxaya inaysan qayb ka noqon Soomaaliya haddii aan la helin sida ay doonayso ee nidaamka federaalka ah aragtida afraad ee kale madashana lagu soo bandhigay waxay ahayd in la galo dagaal siyaasadeed oo ku wajahan sidii doorashadu ay uga qabsoomi lahayd Muqdisho kaas oo si Puntland ay xoogga saarayso sidii farmaajo uusan mar kale u guuleysan lahayn muddo kororsiga 2 sanana loo soo afjari lahaa loogana hortagayo tallaabo kasta oo 12 bishan qaraarkii baarlamaanka federaalku ay gaareen looga hortagayo taana ay noqoto aragti ay Puntland hogaamiso madaxweynaha Puntland Siciid Deni waxa uu goordhow la hadli doonaa baarlamaanka Puntland macluumaadna helay waxay cadeynayaan uu jeedin doono khudbad kooban uu ku wargelin doono arrimihii u dambeeyay ee siyaasadda Muqdisho uuna cadeyn doono in dood baarlamaan la geliyo qaraarada ku wajahan xalka doorashada federaalka ee Puntland qaadanayso
si weyn ayaa la isku weydiinayaa tallaabada baarlamaanka oo loo arko mid inta badan u dabran doonista xukuumadda.